Assalaamu calaykum. 195 wadan ayay dunida ka kooban tahay. Wadan walbana waxa uu leeyahay wuxuu kaga fiican yahay ama kaga duwan yahay dalalka kale. Maanta waxaan soo qaadan doonaa dhowr wadan. Mid walba waxa uu kaga wanaagsan yahay ama kaga fiican yahay dunida inteeda kale. Haddii aad rabto inaad ogaato wadankaaga waxa uu ku fiican yahay, dhammayso daawashada videogan. Riix subscribe si aad ugu soo biirto kanaalka. Hana hilmaamin inaad like saarto haddii aad ka hesho videogan. Aan ka bilowno safarkeena Mareykanka. Waa wadanka ugu awoodda badan xagga dhaqaalaha iyo milatariga. Waana wadanka ugu horeeya xagga bandhigyada TV-yada iyo aflaamta. Sidoo kale kuwa lagu sameeyo wadankan waa kuwa aad u sareeya. Wadanka wuxuu caan ku yahay kala duwanaanshaha dadka, cimilada iyo dabcan cuntada. Sidoo kale wadanka Mareykanka wuxuu caan ku yahay magaalooyinkiisa waaweyn ee dunida oo dhan u soo dalxiis tagaan. Aan aadno Mareykanka dariskiisa, Canada. Waa wadanka ugu weyn ee soo saara macmacaanka maple. Maple waxaa laga sameeyaa geedka maple ee ka baxa Canada. Taasi waa iska caadi, laakiin tan la yaab kale ayaa ah in Canada tahay wadanka dadkiisa ugu waxbarashada badan dunida oo dhan. Sida lagu daawacay website-ka ururka dhaqaalaha iyo horumarka, in ka badan 56% dadka waaweyn ee u dhashay Canada ayaa haysta heerka waxbarashada sare. Justin Trudeau, ra'iisul wasaaraha Canada, ayaa sheegay in waxbarashadu tahay ilaha ugu weyn ee qaranka Canada. Brazil waa wadan lagu yaqaano musiga iyo qoobka ciyaarka, waxaana ku yaala oo mara inta ugu badan kaynta Amazon. Waxaa sidoo kale lagu yaqaanaa wadankan inuu yahay wadanka ugu badan ee haysta koobka adduunka, waxaana haystaa 5 koob. Wuxuuna caan ku yahay soo saarista ciyaaryahanada ugu fiican dunida, sidoo kale cuntada iyo macmacaanka. India waa dhulka laga helo malaayiin nooc ee basbaaska, dhaqanka, diinta, luqadaha iyo aflaamta caanka ah ee Bollywood. Waxaa kaloo la yaab leh in haweenka India haystaan 11% dahabka adduunka yaalla oo dhan, taasoo u dhiganta dahabka ay haystaan Mareykanka, Germany iyo Switzerland oo la isku daray. Aan aadno wadanka yar ee dariska la ah, Nepal. Nepal waxaa ku yaala buurta ugu dheer adduunka ee Everest, taasoo dhererkeedu yahay 29,028 feet oo joog ah. Waxaa sidoo kale ku yaala webiga ugu qotada dheer adduunka, kaasoo la yiraahdo Kali Gandaki, oo hoos u dheer 4,000 oo feet. Sidoo kale waxaa ku yaala haraha ugu sarreeya adduunka, haraha Tilicho, ka oo 16,000 oo feet ka sarreeya cabirka badda. Pakistan waxay dhacdaa meel istiraatiiji ah oo waxay marin u tahay bariga dhexe, China, dhexbartamaha Aasiya iyo koonfurta Aasiya. Wadankan waa dalka labaad ee ugu badan ee soo saara cusbada. Shiinaha, dadkiisu waxa uu gaarayaa 1.5 bilyan oo qof, taa oo ka dhigtay kan ugu badan dunida oo dhan. Sidoo kale waa wadanka ugu badan ee soo saara alaabaha nooc walba. Dadka Shiinaha waa kuwa ugu badan ee isticmaala taleefanada caaqilka ah ama smartphone iyo internetka, iyagoo ka badan inta ay isticmaalaan dadka Mareykanka. Malaysia waa wadan yar oo dhaqaalihiisu saa'id u korayo. Waxa uu soo dhaweeyaa malaayiin qof oo bukaan ah sanad walba, waxaana taas keentay inuu yahay wadanka ugu fiican ee adeegga caafimaadka dunida oo dhan baxsha. Philippines waxaa lagu yaqaanaa xeebo qurux badan iyo biyo dhacyo riyo la moodo. 3 ka mid ah jasiiradaheeda waxay kaalinta 3aad kaga jiraan 30 jasiiradood ee ugu quruxda badan dunida oo dhan. Xog ururin la sameeyay 2015. Singapore waa wadan zaa'id casri oo ah si aan caadi ahayn u horumarsan, saa'id u koraya. Midnaha iloobin, wadankan waxaa ku yaala airportka ugu fiican dunida, Changi Airport, ka oo ku guuleysanayay 6 sano ee la soo dhaafay. Waxaa halkaas ka heli kartaa tiyaatar aflaanta laga daawan karo, beero raaxo ah iyo meelo cunnada lagu cuno oo casri ah. Sidoo kale meel carruurta ku cayaaraan. Cajiib. Japan waxa uu caan ku yahay tareenada dheereeya, kartuunka iyo musaaracada ay ugu yeeraan sumo. Wadankan waxa uu lambar 1 ka yahay waxyaabo badan, waxaana ka mid ah inuu yahay wadanka kaliya ee ku yaalaan 31 maqaayadood oo ah
nooca loo yaqaano 3 star. midowga imaaraadka carabta UAE, United Arab Emirates. waddankan waxa uu ka kooban yahay 7 imaaradood. waxa uu leeyahay saxaraha carrada cad ee ugu badan dunida oo dhan. yaanan ka iloobin waxaa ku yaala dhismaha ugu dheer dunida oo dhan, taa oo la yiraahdo Burj Khalifa. United Kingdom ama UK, dhulka baska guduudan ee 2 dabaq leh, waa boqortooyada dunida ugu weyn, waxaana boqor u ah Queen Elizabeth oo 92 sano jir ah. waxayna xilka haysaa 65 sano. intii ay xilka haysay waxaa Mareykanka soo maray 11 madaxweyne. France waa waddanka loogu dalxiiska badan yahay dunida oo dhan, waxaana sanadii 2017 oo keliya soo booqday 89 milyan oo dalxiisayaal ah, iyagoo booqanaya taalada quruxda badan ee calaamad u ah magaalada Paris ee lagu magacaabo Eiffel Tower. Netherlands ama Holland ama Dutch, hadba sida u taqaano, ma qiyaasi kartaa waxay kaalinta koowaad kaga jiraan? waa waddanka kaalinta koowaad ka galay baaskiilada adduunka oo dhan. waddankan waxaa ku nool 17 milyan oo qof, halka 22.5 milyan oo baaskiile ah ay haystaan dadka Dutchka ama Hollandeeska ah. waxaa ku muuqanaya in baaskiilada ka badan yihiin dadka reer Holland. aad ayaa looga jecel yahay baaskiilada halkan. Denmark, sabab kasta ha noqotee, dadka Daanishka ah waxay markasta 3 kaalin ee ugu horeysa kaga jiraan dadka ugu farxadda badan caalamka. waxaa laga yaabaa sababta keenaysa farxaddan inay tahay xogta sheegaysa in Denmark ka mid tahay wadamada ugu musuqmaasuqa yar dunida oo dhan. waa macquul, laakiin ma hubo. Finland, haddii aad rabto waddan ammaan ah oo aad ku noolaatid, doorashadooda ugu fiican waa Finland, sababtoo ah heerka dambiyada waddankan waxa uu u dhow yahay eber. waxaa laga yaabaa sababta inay tahay in dadka Finishka ah ay ku mashquulsan yihiin cabitaanka kofeega. qofka Finishka ah maalintii wuxuu cabaa 2 koob iyo bar kafee ah. Finland waxay dunida ku garaaceen isticmaalka kafeega. Estonia, sida ay ku waramayso hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyay WHO, Estonia waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa hawada nadiifta ah iyo deegaanka wanaagsan ee caalamka oo dhan. waana meesha ugu wanaagsan ee ganacsi lagu bilaaban karo. Germany waxaa ka jira nidaam tareenada caamka kuwooda ugu waqti ilaalinta fiican caalamka oo dhan. ciyaaryahanada u ciyaara waddankan waa kuwa ugu badan ee ku guuleystay biladaha Olombikada jiilaalka. waddankan waxaa laga helaa 1500 oo nooc oo rooti kala duwan ah. Austria waa dariska Jarmalka ka xigo dhanka koonfurta. waddankan waxaa ku yaala magaalada ugu fiican ee lagu noolaado. Vienna waxay ku guuleysatay 9kii sano ee u dambeeyay magaalada ugu fiican ee lagu noolaado, iyadoo leh nolol fiican uu qofka ku noolaado, gaadiidka dadweynaha oo aad u fiican, iyo meelo taariikhi ah oo lagu damaashaado waqtiyada fasaxyada. Italy, waddankan waxaa ku yaala 51 meel oo ay hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO u aqoonsan tahay meelaha qadiimka ah ee dunida. waxaa kale oo ku yaala 10 falkaano oo ilaa hadda shidan ama active ah, waxaana ugu caansan buurta Etna ee ku taala Sicily. waddankan waxaa isku bedelay maamulo badan oo gaaraya 63 xukuumadood laga soo bilaabo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunyada. Greece waa waddan kale oo ku yaala koonfurta Yurub. waddankan waxa uu caan ku yahay soo saarista saliidda saytuunka, waana waddanka loogu isticmaalka badan yahay saliidda saytuunka. markan aynu aadno qaaradda Afrika. South Africa, waddankan waxa uu soo saaray dad aad caan u ah oo u ololeeya xuquuqda bini'aadamka, waxaana ugu horeeya madaxweynihii hore ee waddankaas Nelson Mandela. waddankan waxa uu bixiyaa kala bar korontada qaaradda Afrika oo dhan ay isticmaalaan. Soomaaliya waa waddanka ugu xeebaha dheer qaaradda Afrika marka laga soo tago Madagaskar oo ah waddan jasiirad ah. Soomaaliya xeebaheeda waxay gaarayaan 3333 kiiloomitir, waxaana loogu yeeraa dhulka udugga maadaama dhulka Soomaaliya ku badan yihiin dhirta laga sameeyo udugga
yaanan ka iloobin dhulka Soomaaliya waxaa ku nool dumarka ugu quruxda badan qaaradda Afrika. taas way ku xiiso gelinaysaa. waa dhab. New Zealand waa guriga dhulka quruxda iyo doogga iyo guriga kooxda caanka ku ah rugby ee loo yiraahdo All Blacks. waxayna leedahay xeeb qurux badan oo dhererkeedu gaarayo 90 mayl. waxay ka mid tahay wadamada barwaaqo sooranka ah, waxayna haystaan nidaamka caafimaadka ugu wanaagsan dunida. Australia waa wadanka ugu sawirada fiican dunida markii loo eego qiimeyn laga sameeyay barta wadaagga sawirada ee Instagram. waxaana la sheegaa in dalkan ku wanaagsan yahay nolosha dhalinyarada da'dooda u dhaxayso 10 ilaa 24 jir. ugu dambeyn, Australia waxay leedahay xawaaraha internet 4G ee ugu dheereeya adduunka oo dhan. intaas ayaan jeclahay inaan ku ekeeyo mowduuceeni maanta. Assalaamu calaykum.